بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا مدن حسن شيخ محمود markuu arkay qodobka 87 farqada koowaad xarafka ca iyo farqada labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 9aad xarafka ka ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 8aad farqada afaraad ee xeerka lambar 6 ee soo baxay 12 Febraayo 1980 kuna saabsanaa in gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ay hoos yimaadaan madaxtooyada jamhuuriyadda markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu ogaaday inay jirto baahi loo qabo in loo magacaabo gudoomiye cusub gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo tixgelinaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa magacaabay mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waaya aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horay xilkan u soo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo dhamaantood hortabin u leh dawladda salna u ah aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho inuu eeba u fududeeyo mas'uuliyaddan culus isagoo ku adkeeyay dhammaan hay'adaha dawladda oo ay wada shaqayntu kala dhaxayso inay si dhow ula shaqeeyaan gudoonka cusub ee gobolka Banaadir xeerkan madaxweyne ee lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dhaqan galaya maanta oo ay taariikhdu tahay 7 Sebtembar 2022 aad baad mahadsantihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed